kusoo tarbiya tacliim bismillah. sida janaabada looga qabaysto kow waxaa shardi ah in qofka uu la yimaado niyad, in qalbiga uu ka niyeysto inuu ka qabaysanayo janaabo, waa shardiga koowaad. labo, wuxuu dhahayaa bismillah, qalbiga ayuu ka leeyahay bismillah, ma dhahayo bismillahi raxmaan iraxiim, wuxuu dhahayaa bismillahi oo keliya. lambar 3, xibinta taranka ayuu dhaqayaa si wanaagsan. lambar 4, gacmaha ayuu dhaqayaa si wanaagsan isagoo markaasi isticmaalayo saabuun iyo shaambo wuxuu markaasi awoodo. lambar 5, wuu weyse qaadanayaa. halkan waxaan uga faa'iidaysanaynaa weysadii inaan idinku soo bandhigno. wuu luqluqanayaa 3 jeer, hal mar, ugu yaraan 1 mar ilaa 3 jeer. luqluqasho ugu yaraan 1 mar ilaa 3 jeer sida ugu fiican ama sunnada ah. sandaarsi 1 mar ilaa 3 jeer sida sunnada ah. wajigu dhaqayaa 3 jeer sida sunnada ah. gacmaha ayuu dhaqayaa isagoo markaasi ka bilaabaya gacanta midig sida sunnada ah. min 3 jeer ayuu dhaqayaa gacan walba sida sunnada ah. madaxa ayuu masaxayaa 1 mar, dhigaha ayuu masaxayaa 1 mar, lugaha ayuu dhaqayaa isagoo markaasi ka bilaabayo lugta midig sida sunnada ah. min 3 jeer ayuu dhaqayaa lug walba sida sunnada ah. macnaha weysada hal haddaad samayso qofka way ka gudaysaa. hal haddaad samayso oo 3 jeer dhaqin weysadaada waa taam, laakiin sunnadii baad ka tagtay iyo sida wanaagsaneed. sidoo kale markaad dhaqayso gacmaha haddaad gacanta midig aadan bidix ka bilowdo weysadaada way jiraysaa, waa caadi, waxba kaama halaabin. sidoo kale lugaha markaad dhaqayso haddaad lugta bidix ka bilowdo weysadii waa tamaam, laakiin waxaad ka tagtay sunnadii iyo wax weyn baad ka tagtay, mana wanaagsana. laakiin lama dhahayo qofkaasi lugta midig bidix buu ka bilaabay ama gacanta bidix buu ka bilaabay sidaa darteed weysadiisii waxba kama jiraan, lama dhihi karo. intaa kadib qofka wuu dhameeyey weysadii, qubeyskii buu gudagalayaa. fiirso, qofkii wuxuu niyeystay inuu janaabo ka qabaysanayo, kadibna wuxuu yiri bismillaah, kadibna wuxuu dhaqay xibintiisa taranka si wanaagsan, kadibna wuxuu si wanaagsan u dhaqay gacmihiisa. markuu sameeyey 4taas shay buu si wanaagsan u weyse qaatay isagoo ka bilaabayo luqluqasho iyo sandaarsi ka bilaabayo ilaa markaasi lugaha ka dhaqay. intaa kadib qofka waxaa looga baahan yahay markan inuu qabaysto. qabaysanayaa, qabayskana wuxuu ka bilaabayaa madaxa ayuu ka bilaabayaa. waa in biyaha ay wada gaaraan jirka intiisa oo jirka oo dhan. si taa loo hubiyo waa in qofka taxadaraa, gacanta mariya jirkiisa oo dhan, khaasatan meelaha laga yaabo inaysan biyaha si rasmi ah markaasi ama si iskooda u gaari karin ilaa gacanta lagu caawiyo. siiba dadka markaasi laga yaabo inay yihiin dad markaasi cayilan. haddii meel yar oo jirkaaga ka mid ah ayna biyo gaarin, macnaheedu waxaa weeyaan qabayskaaga waxba kama jiro. sidaa darteed waa taxadar aad u badan ay u baahan tahay. sidoo kale ku xisaabtamin biyihii hore ee macnaha aad ku istijootay amaba aad gacmaha ku dhaqday iyo waxyaabahaas oo dhan ha ku xisaabtamin. halkan markaad qabayska bilaabaysay ayaa laga hadlayaa. 7 intaa kadib qofka wuxuu ka baxayaa goobtii markaasi uu ku qabaysanayay, uu ka baxayaa, kadibna wuxuu akhrinayaa ducada soo socota iyo ducooyinka lamidka ah. ducadan soo socota iyo ducooyinka lamidka ah sababtoo ah adkaar badan ayaa ku soo aroortay. marka ducadan ayaan soo qaatay: subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka wa atuubu ilayk. subxaanaka allaahuma, ilaahayow nasahnaantaada, ceeb la-aantaada, hufnaantaada, wabixamdika mahadaada, ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaah inuusan jirin xaq lagu caabudo ilaa anta adiga mooye, astakfiruka dembi dhaaf ayaan ku weydiisanayaa, wa atuubu ilayka adiga ayaan kuu soo laabanayaa ama ku toobad keenaya. subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka wa atuubu ilayk. xarafkaas g iyo hta aan israaciyo waa qayn. qaynka malaha af soomaali
waxaa baraarujin u baahan badanaa meelaha lagu qubaysto waxaa ku yaalo musqulo sidaas darteed lama ogola in wax adkaara markaasi lagu aqriyo sida bisinka oo kale.